Abay haddaan wararkeena ciyaaraha ee habeenimada caawa aan ku guda galnana waxaa ka mid ah Wolves iyo Man City oo ay ku soo gabagabooday ciyaartoodii 3-0. Man City ayaana 3 gool kaga adkaatay Wolves. Haaland, Grealish, Foden ayaana shabaqa soo taabtay isla markaana guul sahlan ka gaaray 10 xidig oo Wolves ah. Ilaa Haaland ayaa dhaliyay goolka 14aad ee xilli ciyaareedkan. Haaland ayaana noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikhda Premier League ee gool dhaliyay 4 kulan ee ugu horeysay kulamada banaanka ee awayga ah. waxaa kaloo wararkeena ka mid ah Bayern Munich ayaa wax guul ah ka gaareen 4 kulan ee ugu dambeysay oo ay ciyaartay horyaalka Bundesliga. maanta ayaana mar kale la garaacay iyadoona hoggaanka lagala wareegay oo kooxda Dortmund ay la wareegtay. Marco Reus ayaa dhaawac garoonka looga saaray wuxuuna dhaawaciisu ku soo aadayaa xilli 2 bil oo kaliya ay ka harsan tahay koobka adduunka. Barcelona ayaa 3-0 u dhiibtay Elche. Roberto Lewandowski ayaana